بسم الله الرحمن الرحيم daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij ay kamarada telefishinka qaranku ugu dhabagashay duruufaha dad tiro badan oo xanuunka dhimirka qaba oo ku nool deegaanada bariga magaalada Burco gaar ahaan degmooyinka Qoryaale iyo tuulooyinkeeda socdaalkan kamarada TV-ga waxa nagu wehelinayay xubno qurba jooga iyo waxgaradka deegaanadaasi waxaana ujeedadoodu ahayd korgalka dad badan oo xanuunka dhimirka qaba oo ku sugan deegaanadaasi iyadoo gudoomiyaha degmada Qoryaale uu horkacayay xubnaha qurba jooga ee u kuurgalayay dadkaasi xanuunsanaya isagoo u dulgeeyay mid dhammaanba dadkaasi xanuunsanayay la rabo in loo dhiso cisbitaal lagu daryeelo oo laga hirgelin doono degmada Qoryaale ilaaf madoobe ayaa ka mid ah iyadana deegaamada ay joogaan dadka xanuunka dhimirka qaba ee aadka u tabarta daran ee u baahan gurmadka iyo gargaarka bini'aadanimo isla markaasna uu wax weyn ka tari doono dhismaha cisbitaalkani waa kuwan ugu horeyn dadweynaha tuulada Inaaf Madoobe oo ka waramaya duruufaha dadka xanuunka dhimirka qaba ee ku nool tuuladaasi baaqna u diray cid kasta oo jecel inay bisha barakeysan ee Ramadaan ka qayb qaataan daryeelida dadkaasi xanuunsanaya ee cisbitaalka loo dhisayo halkani waxa weeye magaalo yar ama Inaaf Madoobe dadka xanuunsanaya aad iyo aad buu fara badan yahay rag iyo dumarba wuu leeyahay wax ka sokeeya cisbitaalka maanta la dhagax dhigay ee Qoryaale degmada Qoryaale wax ka sokeeyo oo aanu xogmayo oo taakulahan waynaana ma jirto waxaan la rajaynaynaa cisbitaalka haddii Allahu ka dhigo marka ay hawshiisu dhamaato wixii kale ee dadka wax taraya ee ama dawladda ama haddii la xogmayo hay'adaha waxa weeye waan ku taageerinaa magaaladan waxa jooga dad aad u fara badan oo dhimirka wax ka qaba iyo kuwa badan oo aanan arkin oo yani la soo furi karo way dirkuba way leeyihiin oo way jiraan إن شاء الله تعالى أرتم مركور إلهي وحنو قبرنا دت كانوا عافمات سياسة عافمات كبحية أنت هدينو كجودبنو وحنو باقنا عد كستاء يعني أرنتنا خصيصة وصارت عافمات كسومال أنا هديت هاي شهلية السومال أنا الدبادة كم كان هديت هاي عد كستاء تأكلك جيسان كرتا هديت هاي ما أنت لاقر نجح نجاي دقمة Qoryaale loogu talagalay in lagu daryeelo dadka noocaas lagu xanaaneeyo cid kasta oo taakula ka geysan karta yaani waxaan u leedahay ku soo dhawaada ayaan u leenahay gamco furan baan idin ku soo dhaweynaynaa ilaahay subhanahu wa ta'ala qof kasta oo yaani taakula ka geysta abaalmarinteeda ayaan insha Allah ta'ala ilaahay uga baryeynaa marka insha Allah intaasaan ku soo gabagabeynaa muddo hore oo aanu yaani halkan ka diiwaan gelin waxaanu diiwaan gelin magaalo yar oo kaliya aanu ka diiwaan gelin ilaa iyo dhowr iyo 30 qof marka inta yaraan aragnaa waa in yar oo deenta suuqa marmaraysa weeyaan rag iyo dumarba yaani isugu jiraan dadka noocaas marka way u baahan yihiin meel lagu daryeelo lagu xanaaneeyo daawo ay ku helaan ay dadkaas aad iyo aad ugu baahan yihiin marka mar labaad waxaan ugu baaqaynaa wasaaradda caafimaadka Soomaaliland jahliyada Soomaaliland waxay ku maqanay dibad jooga xisbiyada dawladda dhammaan cidii kale yaani taakula ka geysan karta jeebkeeda ka bixin karta ganacsatada dhammaan yaani taakula laga geystaa insha Allah waxa Xasan Xaaji Maxamed Awad magacaygu waxaan ka socdaa qurba joogta u dhalatay deegaankan joogta waxay soo igmadeen in aan warbixin soo siiyo oo dadka xanuunsanaya oo deegaankan aad ugu fara badan degmada Qoryaale iyo nawaaxigeeda oo ay tuuladan Inaaf Madoobe ka mid tahay ayaa ay soo igmadeen in aan ka soo warbixiyo waanu ka nimi wixii report ah waxa kala socon doonta insha Allah biidnillah Inaaf Madoobe intaan ka warhayo waxa la ii sheegay oo Qoryaale iyo odayaasheediba ii sheegeen markaan xog wareysanay in dad aad u tiro badan ay xanuunsanayaan oo xanuunka ahaa tuulada Inaaf Madoobe oo xanuunka maaragtay dhimirka uu ku badan yahay marka waxaan leeyahay oo ugu baaqaya madaxda qaranka Soomaaliland oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo golahiisa wasiirada xisbiyada qaranka muxaafid iyo mucaaradba wasaaradda caafimaadka hay'adaha taakuleeya dadka dhibaataysan qurba joogta iyo dadka deegaanka laftooda oo iyagu laftoodu dad ilaahay wax ku jiraan waxaan aan ugu baaqaynaa inay dadka u soo gurmadaan oo cisbitaalka la hadlayo dhismihiisa ay si fiican uga qayb
gudoomiyaha Qoryaale Bilo Jaamac ayaa isaguna intii aanu ku sugnayn degmada Qoryaale ka warbixinaya dadka xanuunsanaya ee aanu ku booqanay goobaha iyo guryaha ay ku xidhan yihiin isagoo bulshada islaamka ka codsaday gurmad iyo gargaar bani'aadanimo inay kaga qayb qaataan cisbitaalkan laga hirgelinayo degmada Qoryaale. ku xidhan laba hablood oo walaala labadubana ay xanuunsanayaan waad aragtaan wataa kamaradu ku dhacday qaar saddex ku xidhan yihiin waynu tagi doonaa qaar afar ku xidhan yihiin baynu tagi doonaa walaala haddii ilaahay ka dhigo marka sidoo hore aan baaqaba ugu sheegnay waa kuwa waa aragtaan u soo gurmada qof kasta oo muslina indhihiisa ilma ka imanaysa markay arkaan dadka meesha ku xidhan nooca yihiin waa inantii labaad iyaduna xanuunsanaysay inantii hore walaasheed wey waa walaalo iyaduna waa inan xanuunsanaysa waa isku qoys waa laba walaala hooyadoodna waa tan halkaas soo taag hooyadoodna waa tan halkaasay ku haysaa dhaqaale uma hayso wax alaala waxay u haysaa ma jiraan halkaasay ciidda cunayaan ciidday ku nool yihiin ciidday cunayaan mararka qaar baa inantaa malawadku ka soo dhacay siday ciidda u cunayso ma haysato waxa ay ku geyso dhakhtar aadan furre halkan imika aynu dul taagannahay waa inaa aadan furre kuwa kalena waynu ku sii soconnaa oo saddex walaalaana waynu ku sii soconnaa waxaa ka badan inta togaga ku xidhan togagan magaalada agteeda inta ku xidhan baa ka sii badanoo saddexa markaa waxaan leeyahay ilaahay baa mas-uul looga dhigay waxba uma hayno aanu ilaahay wuuna arkaa inaanaa waxaanu ku daryeello aanaan haynin marka waxaannu ka codsanaynaa shacbiga ummadda soomaaliyeed somalilan meel kastoo ay joogaan inay dadkan wax u qabtaan oo meel lagu xanaaneeyo u dhisaan dul taagannahay waa ninkii dawladdii Siyaad Barre markii aynu iska celin weynay taangiyada galbeed uga yimi isagoo askari dawladdii faqasta baa la yidhi dadkii waxa laynaya taangiyo galbeed buu ka yimi wuxuu yimi dhoqoshay war maxaa idin haysta buu yidhi taangiyaa naftiisu u keenay baa la yidhi bal ii geeya buu yidhi aniga labadii taangiya ugu horreeyey waa ninkii ku gubay caynaba maantana waa ka sidaas geedka ku xidhan waxaa loo qabto aan dul taagannahay imika gabadhan aynu dul taagannahay afar qof baa ka waala waa qoyska uu iska deldelay inanku intuu dhaqaaqay dixdaa tegey ee deedna xadhigga isa suray labadii kale midna dhakhtarka burcaa lagu hayaa midna kolley meelahaanu marmaraa afar qof baa ka xanuunsanaya waa qoys qaar togagan ku xidho saddexina way jiraan marka waxaanu leenahay indhihiina ku aragtaan waxaa ila jooga Bilo Jaamac Muuse sida uu inoo sheegay waad aragtaan qoyskan waxa ka waalaa buu yidhi saddex baa iminka nool midna waa isdildelay buu yidhi laba qolo oo horena waanu soo marnay qolo laba hablood ka xanuunsanayaan iyo ninkii mujaahidka ahaa ee aadan furre na horaan u soo marray qaar kale oo badanna magaalada way joogtaa inaaf madooban inta in ka badan baa joogta iyo eeriyadaba waxaan idinku baaqayaa cid kasta oo arrintani qusayso oo uu ugu horeeyo dadka waxa ka mas'uula jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha isaga ay doorteen ugu horeyn madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa iyo wasiirada iyo wasaaradda caafimaadka qurba joogta cid kasta oo arrintani qusayso in ay wax ka qabtaan cisbitaalka Maandhaye ee qurba joogtu iminka aasaaskiisa wadaana ay ka qayb qaataan wasalaam gabagabadii daawadayaal waxgaradka culimada iyo qurba jooga deegaankaasi Qoryaale ayaa baaq wada jira ka diray xaaladda dadkan xanuunsanaya iyo gurmadka uu baahan yahay cisbitaalkani alxamdulillaah ilaahay baa mahadle halkan waxa taagan oo aanu ku soo dhaweynaynaa guddidii gaashaanbuur Axmed Faarax iyo cuqaasheedii iyo qurba joogii dibadda ka yimi ujeedada ay halkan u yimaadeen ay tahay Maandhayaha ee dadka xanuunsanaya ee deegaanka degmada Qoryaale jooga looga dhisayay dhakhtarkii loo dhisayay ayay u yimaadeen halkan u tubanahay ee u taaganahayna waa taa goobtu waa maalin axada bisha Maarch waa 13 riigii biyaha ee degmada Qoryaale ayaa agtayada ah meesha dhakhtarka laga dhisayaana waa agtiisa si riiga biyihiisa ay u isticmaalaan dadka xanuunsanaya ee meesha maalinkan maanta lagu xanaaneynaya ay riiga u isticmaalaan ayaanu u taagannahay marka ugu horeysa hadigoo ah gudoomiyihii degmada Qoryaale Bilo Jaamac Muuse waxaan cid kasta aan ugu baaqayaa dawladda Soomaaliland ha noqoto dadka qurba joogga deegaankan u dhashay ha noqoto dadka muxsiniinta ah ee caadiga ah shirkadaha
somalilan ka howlgala ama telesom ha noqoto ama habshiil ha noqoto cid kastaba ha noqotee in ay wax ka soo la dhisayo ee dadka xanuunsanaya loo dhisayo deegaankan waxa ku nool 2 ilaa 200 oo qof baa ku nool degmada Qoryaale magaalo yar intan oo kaliya 200 oo qof oo xanuunsanaya ayaa ku nool oo dhirta ku xidhan dadkaas oo dadkii dagaalada wax ka soo gaareen ee maskaxda xagga kala wareegtay in kale oo ka badanna waa la keenayaa oo maalinkan maanta deegaanadan oo dhanna waa la keenayaa marka waxaan halkaa baaq ka dirayaa in cid kasta oo danaynaysa islaamnimada ama deegaankan danaynaysa inay wax ku tarto dhakhtarka la bilaabayo waxa dhulka dawlad hoos ahaan anaga bixinay waa dhulkii degmada Qoryaale dhulaan anagu meel kale ka keenay ma waa dhulkii degmada Qoryaale anaga u qabanay muddo horaan hawshan bilownay sawirada iyo dadka xanuunsanaya horaan u diray dhulkanuna waa dhulaan ugu talagalay waa dhul ballaaran doonina hadii Ilaahay ka dhigo in mar walba la kordhiyo oo marba wixii lagu dari karo ilaa marka dambe waarka umulaha marka dambe inta lagu dari karo in lagu daro weeye hadii Ilaahay ka dhigo biyahana waanu ku soo dhaweynay hadii Ilaahay ka dhigo kii waanu haynaa waa dhul ballaaran waanu haynaa dhulkii cid iibinayso lacag ku doonaysa ma jirto annaga dawlad ahaan hayna dhulkii waxa loo baahan yahay waa wixii laga dhisi lahaa kharashkii lagu dhisi lahaa dhakhtarka weey iyo in laga qayb galo qaaraanka laga qayb cid kasta waxaan ugu baaqayaa inay qaaraanka ka qayb gasho sida gudoomiyihii degmadu u sheegay waxaan waqtigan kulul u taaganahay meesha waa anagoo u tusinayna cid kasta oo ay khusayso qof kasta oo damiirkiisu danqanayo waxaanu halkan u joognaa dadka ugu jilicsan in wax loogu qabto daraadeed baanu u nimi dadka muslimiinta dadka deegaanka u dhashay iyo kuwaan u dhalan qof kasta oo doonaya inuu ixsaan ka geysto xagga Ilaahay u baxsado waxaanu meeshan ugu nimi maanta inaanu ugu baaqano u qayradaan ugu dirno dadka ugu jilicsan oo dadka miyirkoodu dhiman yahay oo dhammaantood bulshada dunida joogta ku ah wax la yiraahdo marti bay u wada yihiin cid wax u qabanaysa cid qadinaysa iyo mid wax siinayaba qofka waalani cidda uu la joogo qofka damiirkiisa Ilaahay dhimay cidda uu ag joogo ayuu marti u yahay ku u dhashay oo qura marti uma aha dhabarkayga qaar baa taagan qaar kale oo farabadanna waa arki doontaan oo meel lagu hayo dadka waxaanu ugu nimi inaanu ugu qaylino dadka damiirkoodu nool yahay inay wax u qabtaan shilinka aad ku bixiso meesha daciifku ka jira ama dhibtu ka jirto sida tan oo kale waxay 2 laab iyo 3 laabba ka khayr badan tahay shilinka aad ku bixiso meelaha kale sida Ilaahay Quraanka ku tilmaamay subhanahu wa ta'ala inuu ku tilmaamay miskiin madrabadii weeye waa miskiinkii isaga iyo dhulka waxba u dhaxaynin waa kuwii aan ehel kale lahayn qof kastoo qof waalan ehel uu garanaya culayska uu ku hayo sida daraadeed waxaanu dadka muslimiinta Soomaalida deegaanka u dhashay aanu dhalan meel kasto ay joogaan dadka damiirkoodu xayiga yahay waxaanu ka codsanaynaa dadka ganacsiga haysta waxaanu dhammaantood ka codsanaynaa inay soo caawiyaan cusbitaalka maandhayaha ee lagu soo deegaanka laga dhisayo hadii Ilaahay ka dhigo dawladda ugu baaqaynaa axsaabta qaranka ugu baaqaynaa dadka ganacsatada baan ugu baaqaynaa waxaan ugu baaqaynaa maxay tooy dadka aan deegaankaba u dhalan waayo shilinka aad baxsato wama anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlifu waxa la waxaad baxsato Ilaahay baa ku haya sida daraadeed baanu leenahay war la soo caawiyo fadhiga ha looga kaco aanu joogna Qoryaale mahad Ilaahay baa leh mudnaan waxaan siinayaa reer Qoryaale dalka ay nageeyeen ee dhismaya riigii biyaa inta ay bixiyeen dhulka ee ay yiraahdeen tabarruc baan u geysanaynaa tabarruc islaamnimaanu uga shaqaynaynaa waxaanu leenahay islaamka qurba jooga dawladda baayac mushtarka
ka kale waxgashanayaba waa halkii la yidhi nebigii wuxuu yidhi cadaabka xabad jeexeedna kulaa iska xigsiisaan wuxuuna iska xigsiiye waa tii bay maanta ku baxsantay waa tii waxaannu leenahay islaamka wixii dhegaysanaya ma aha reer ma leh ummadday ka dhacaysaa waa cusbitaal maandhayahaa loo dhisay meel kasta waa looga keeni doonaa dadku dhagaagaaluhu reer ma lehee islaamkaale islaamka qofba wuxuu gashadaa buu leeyahy waxa uu keenayana ku raagi maaye qofba wixii uu geliyaa buu leeyahy halkaa waxaannu leenahay dawladda dee xil baa idinka saaran dadkaba xil baa idinka saaran islaamka iyo ummadda wixii soomaalilaynaba xil baa idinka saaran xil iska saara baayac mushtarka xil iska saara qurbajoogga xil iska saara annaguna wixii karaankaya ah dee waa la dhinac taagannahay oo waa la bixinaynaa waxaannu leenahay oo u joognaa halka kan dhakhtarkaa laydiin sheegay baannu u nimi meesha halkaasaannu doonaynaa inaannu dhakhtar iminka ka jeexno oo haddii la yidhaahdo aanu ka bilowno dhakhtar aanu reer leeyahay maaha dhakhtar magaala leedahayna maaha waa dhakhtar ka dhexeeya islaamka meel doontaa jooga islaamka yuu dhakhtarkaasi ka dhexeeyaa wixii miyirkoodii ilaahay ka qaaday ee maandooriyaha noqday yaannu u dhisaynaa mid reer sheegan kara maaha mid qola sheegan kartana maaha waxaannu leenahay wixii islaamahow ka soo qaybgala oo ka geysa wixii aad ka geysan kartaan waxaan ku soo noqonayaa somalilan qurbajoogga iyo raacyaadka haddii la yidhahdo miyiga wax ku haysta iyo dowladda haddii la yidhahdo xukuumadda iyo baayac mushtarka xil gooniyaa idinka saaran sababtoo ah bogcaddaa teeniya haddii ilaahay ka dhigo bogcadda yaa teeniya xil gooniyaa idinka saaran waa baayac mushtarka iyo dowladda iyo haddii la yidhahdo reer miyiga xoolo raacatada ah iyo qurbajoogga intaa xil gaara baa ka saaran dadka loo qayladhalaaminayaa waa dadkii bogcadda ku noolaa weeye iyadoo aynaan islaamka wixii haddii la yidhahdo caawimo ka geysanaya aynu ka doonayno wixii laynoo keenana aynu diyaaru nahdo gacmo dhow ku soo dhaweynayno ee bukee waxaasoo kale noqdaan waxaan leedaha kaga baxayaa nalooma hambaynin hadalkii waa intii horumaanu ku noqnoqonaynaaye waxaanu leenahay ninka dhigta halkaa maanta waxgashada waa nin masaajid dhagax dhigtay oo kale intaa anigu waxaan halkan baaq uga jeedinayaa dhammaan xukuumadda iyo dadka ilaahay wax siiyey inay ka qayb qaataan cusbitaalka maandhaye saddexda xusbi qaran baan halkan fariin adag uga jeedinayaa waxaan leeyahay cusbitaalka maandhaye ka qayb qaata oranaga cidda jeefka kuma jirne ka qayb qaata ayaanu leenahay waxaanu leenahay cusbitaalka maandhaye saddexda xusbi waa siday wax uga qabtaan baa codka qoryaalana ku xidhan yahay codka qoryaala wuxuu ku xidhan yahay siday ugu soo kala horeeyaan siday ugu soo kala tartamaan siday wax uga qabtaan buu ku xidhan yahay inaannu baaq u jeedinno wixii ay dani ka hayso dadka dad badani waxay garanayaan oo ku abtirsada dagaalada iyo sanamyada iyo waxaa soo maray dad badan oo qoryaala ku xidhan way garanayaan waabay garanayaan oo ay yaqaaniin dadkaa markii la qiyaasay tiro badan bay noqdeen dabeedna waxaa la yidhi dadkan aan meelaynu iskaga asturo laguna daweeye samayno amarka ilaahay meeshii halkan ay noqotay waxay ku dhowaatay riigii waxay ku dhowaatay magaaladii waxay noqotay inay meel ballaadhan oo waasaca looga heli karayo sawirkiina waa aragtaanoo waaba la hayaa waxaannu baaq naxariista u jeedinaynaa ciddii qurbaha joogta ciddii maalqabeena ilaahay wax siiyey ciddii u xukuumadee dadkan xil ka saaran yahay maamullada dhammaantood waxaannu baaq si naxariista ugu jeedinaynaa inay dadkaa wax ka qabtaan caawiyaan dhiskaa waxna nagala qabtaan annana aanaan sida aannu u wadno aanaan ka caajisan guddiyo badan oo soo gaadhi doono idiin iman doonana waa loo samaynayaa cid kasta oo hawshan wax ka geysan kartaa waxaannu ka codsanaynaa inay ka geystaan caawimo iyo waxtarba ka geystaan ilaahayna waxaannu ka baryaynaa cid kasta oo waxgashata inuu ilaahay wax khayrle ugu beddelo kuwa hawshan bilaamayna waxaannu ugu dacaynaynaa in ilaahay fududeeyo mas-uuliinta degmada oo bixiyey imarka dhulkanna iyagana waa uga mahad celinaynaa
annana waxaannu ballan qaadaynaa haddii ilaahay ka dhigo cid waliba waxay awooddeedaa inay gashato haddii halkan isbitaal noqoto ma noqonayso isbitaal degmadoo keliya waraabiyee qorshaha sida balaanka ay u dhigeen in isbitaal weyn laga dhigobaa yaannu rajaynaynaa ummad badan oo dhulka ka dhowna inay u haydo markaa cid kasta waxaannu ka codsanaynaa oo ku wargelinaynaa inay cid waliba wixii awooddeed iyo karaankeeda ay ka qabato ilaahayna waxaynu ka baryaynaa inuu dhammaanteen ba inoo fududeeyo qayladhaanta aannu maanta soo diraynaa ma la hadlayso reer qoryaale oo qudha laga bilaabo reer qoryaalaa laga bilaabayaa dadkii u dhashay reer burxaa laga bilaabayaa naafaqaadashada nimankii lagu yiqiin qurbajoogta ahaa baa laga bilaabayaa laakiin waxaa meel walba la hormarinaya wax weeye qurbajoogta waxaannu ilaahay ka baryaynaa ilaahay qurbaha inuu idinka siiyo idiin sakhiro dadkaa aa u tagtay inaad la joogtaan ilaahay inuu tacabka idin xasiliyaa baannu ilaahay idiin weydiinaynaa waa si niyaa oo dhaba ilaahay ha idiin xasiliyo tacabka labada nin xasan maxamed cawad iyo salabaanka tikoole hoggaanka ahaa ee arrintan noo keenayna si gaara noogu mahadnaqaynaa degmada qoryaale ee qabanqaabisay dhulkan jeexday ee biyaha la soo doonatay ee diyaarka ah aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan ku gabagabaynayaa dadkii la kala dheere orodsa maaha la kala dheere orodsa maaha sidii ay kala ahaan jirtay kala noqonaysaa dadkii mas-uulka ahaayow dadkii wax baxsan jirayow dadkii ilaahay hortiisa wax dhigan jirayow naafoobi maysaan ilaahay amarkii ma naafoomaysaan ku soo darsada oo soo kaalmeeya oo culayska naga qaada oo 211 qof aanu saaka qornay oo tirinay dadka soo gaarsiiya meel la dhigo oo la isugu ururiyo mana ahaanayso qoryaale oo qudha meel la dhigo ee berrito cid waliba oo imanaysa cid kastaba waxaanu ka codsanaynaa cid kasta oo gobolka togdheer horta weliba gaar ahaan hareerey iyo hareerihiisa waxaanu ka codsanaynaa halaysu gacanta soo saara oo isugu kaalaya oo dhiiba oo ilaahay inaha idiin badbaadiyo ha idiin dhaafiyo wax dhaama intaa rabbi saasaan idiin weydiinaynaa anigu horta marka hore qofkii ugu horeeyay yidhaahda aan qorna ee diiwaan geliya 8 gudaha qoryaalaha markaanu marinaynay yaanu gacmaha kor u taagno wad qaadan waxaan kaloo idiin sheegayaa walaalayaal waxaana soo martay qofka waalan ee ilaahay xuskiisa ka qaaday wuxuu ugu necab yahay dadka cidda la ehelada marxuum geeriyooday oo halkan qoryaale waalaan jiray markuu eheladii la coloobay wuu iska tegey meel galbeedka qoryaalaha markuu marayay xarig buu qaatay oo ilaa 7 qatana meel bii iska salaalaaday halkaasaan geeridiisa ugu tagnay waxa jooga hadda oo media la tusi doona qaar iyaguna qodanaya meel doonaya inuu ka baxo halkaas oo kale marka aad aragto qaarna waa kuwa inala jooga waxaan leeyahay dadka noocaasi dadka way u siman yihiin waxtarkooda islaamnimo hal la soo caawiyo aniga iyo ragaan kamid ahay waxaanu ka soconaa qurba joogta u dhalatay deegaankan oo uu kamid yahay salabaanka tikoole waxa iyaguna nala jooga cuqaal waxgarad culimaa u diin xildhibaano ganacsato aqoon-yahan ka soo jeeda deegaankan ujeedada aanu halkan isugu nimi waa cusbitaal u gaar ah dadka maskaxda ka xanuunsanaya oo la doonayo in laga hirgeliyo degmadan qoryaale waxa fikirkan lahaa qurba joogta ka soo jeeda deegaankan markii ay arkeen baahida ka jirta deegaanka intaa kadib waxay aasaaseen ama sameeyeen barkulan internetka ah oo ay ku ururiyaan qaadhaankaas markii ay wax ururiyeen waxay sameeyeen akoon ay ka fureen maartay bangiga dahabshiil markii intaas ay isku dubarideen waxay arkeen inaanay baahida taagan iyo waxa ay hayaan isdaboolaynin taa awgeed ayaa nagu kaliftay baaqan inaannu baaqno oo odayaasha isugu yeedhno iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanka iyo culimaa udiinka iyo deegaanka qoryaale dadka jooga inaannu isugu yeedhno taasaa nagu kaliftay qiimihiisa waxaa lagu qiyaasay $300,000 markii aanu shirkado dhowra u tagnay tii ugu jabnayd ee dhisaynka noo samaysay oo weliba yacni dhismaha tiri waa idinkala qayb qaadanayna waa shirkadda barako oo ugu jaban
288,000 oo dollar ayay ku qiyaastay weliba isbitaal aan weynayn ah marka waxa weeye way naga taf dheertahay qolada qurba joogta ah ama gruubka iyaga way ka taf dheertahay lacagtaasi waxaanu yani afoori karno maaha ama goyn karno maaha taageed baa ayaa baaqan nagu kaliftay waxaanu halkan uga baaqaynaa qurba joogga u dhalatay deegaankan ganacsatada shirkadaha ka howlgala dalka bulshada ku dhaqan deegaanka gobolka Togdheer iyo gobolada kale wadankaba xildhibaanada ka soo baxay deegaankan ee ku fadhiya codkii dadka bulshada deegaanka madaxda qaranka ka talisa oo ugu horeeyay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo golaha wasiirada madaxda xisbiyada mucaarad iyo muxaafidba golaha sharci dejinta ama golayaasha sharci dejinta wasaaradda caafimaadka hay'adaha deeqda bixiya guud ahaan ummadda islaamka meel kastoo ay joogaan ummadda khayrka jecel meel kastoo ay joogaan waxaan u mahad celinaynaa deegaanka Qoryaale iyo maamulkooda oo noogu deeqay markii ay fikirkan maqleen dhulka laga hirgelin doono isbitaalka oo iminka halkeen baqadan taaganahay ah waxa baaqan kadib mustaqbalka waxa aanu rajaynaynaa in la dhagax dhigo isbitaalka oo ay hay'adaha ku shaqada leh dhawaan ay dhagax dhigi doonaan insha Allah biidnillaahi kariim waxaan ku soo gabagabeynayaa waxa inoo ballana isbitaalka insha Allah biidnillaahi kariim inteena joogta iyo inteena maqan iyo qof kasta oo islaama oo daawada meediyaha ka daawada baaqayaga ama dawladda ahaado ama hay'adaha ahaado ama wasaaradda ahaado ama wasiirada ahaado in ama shakhsi ha ahaadee in laga qayb qaato waayo waa baahi taagan waa baahi aan la iska indhatiri karin waxa weeye waxa dhibaataysan waa dadkeenii waxa aynu wax u qabaynaa waa dadkeenii inaynu ceebteena asturanno ayaa inoo ballana akoon numberka aanu ka furnay dahabshiil waxa weeye Goal Achievement Foundation account number waxa weeye 31313 aan idinku celiyo magacu waxa weeye Goal Achievement Foundation account number 31313 akoonku waa ka walaalayaal akoonkaas insha Allah biidnillaahi kariim cid kasta oo isku dayda inay ka qayb qaadato arintaas khayriga ah akoonku waa kaas akoonkaas ku soo shaqeysan insha Allah biidnillaahi kariim marba meel bay taagan tahay maanta horta waxa aanu go'aan ku gaadhnay in aanu horta marka hore dhismaha taagno insha Allah biidnillaahi kariim kadibna cid kasta oo aanu kula galgalan karno hay'ado ha ahaato isbitaallo kale oo caalamka ka jira ha ahaadaan oo qurba jooggu yani ay la mataaneeyaan ha ahaato wasaaradda caafimaadka ha ahaato waxa weeye inaanu xil la iska saaro oo la rangareeyo oo uu socdo insha Allah biidnillaahi kariim baanu ku rajo weynahay xil badan baanu iska saareynaa waxaanu isku dayeynaa insha Allah biidnillaahi kariim inuu socdo wasaaradda caafimaadkana waxaanu ka codsanaynaa insha Allah biidnillaahi kariim waxaanu ka codsanaynaa in ay iyaduna qayb lixaad leh ka qaadato oo ay noo training garayso kalkaaliyaal caafimaad oo ka hawlgala isbitaalka mustaqbalka dhow iyo ka fogba insha Allah biidnillaahi kariim wasalaam muhiima ayaa in badan lagu mashquulaaye mashaqadu kuway haysato ee maanku ka halaabay maskax farid xanuun midab xun oo meel fog ka abaara miyir lumay madluum laga naxo iyo mudane daandaamay makas dhacantay maan doorsamay iyo madax wareer gaadhay mucsur qaawan ruux mudhuxsan oo meel cidla taagan milic iyo cadceed lagu dhinto iyo maangad kululaatay miskiin caydha reer maal yar iyo mahurto gaajootay macaluul darxumo muuqata iyo xaalad laga maagay umul midab xun muuq laga naxo iyo murugo yaab keentay magan silicday maxas baahatay iyo maato la ilaaway marwo mudanaheedii buko oo juhul madoobaatay ummad madhatay mici iyo malaariya suna iyo duumo madaxgoysa dhakhtar mudadadaan haysan iyo xaalad kala meersan bulsho aan madarisada lahayn maadi iyo diini masjid lagu tukado iyo iskuul lagama maarmeene malcaamadii quraanka ayaa iyana loo muctaad yahay arrin murugsan muuqaan wacnayn
mahadho ceeb keenta intaasoo masalo oo jirta oo laga mayiigayo masiibada jirtaan khaalidow maaro loo helina meehanawga dhacay xaalku waa nin iyo meeshii badan baynu tiifiyada ka aragnaa iyadoo loo hadlayo beelhebla ama urur hebla ama dadka noocaas dadkaan u hadlina waa dadka waalan oo aan cidiba u hadlin xanuunka dhimirkuna xanuunada unbuu ka mid yahay waan laga bogsadaa laakiin dadka dhimirka xanuunka ka qaba dhibta kale siyaasataa waxay tahay cidima daryeesho oo dayac iyo daryeel la'aan baa u dheer xanuunkoodana cidisaa uma daaweyso cidina markaas xilis kama saarto dad badan oo dadkaa ka midna dhirtaasaa lagu xidhaado yacni cid iskaga xidhan yihiinoo meel baa la iskaga xidhaa qofkaasina rabbi subxaana wa tacaala miirkiisa uu ka qaaday innaga ayuu nagu eegayaa dadka muslimiinta waxaan ugu baaqayaa guud ahaan allah ha shaafiyo cid kasta oo xanuunsanaysa mar labaad dadka muslimiinta waxaan ugu baaqayaa walaalayaal degmada qoryaal waxaa laga dhisayaa dhakhtar maandhay ah oo dadka markaa xanuunsanaya dhimirkooda ka buka loogu talagalay markaa lacag badan baa ku baxaysa ilaahay subxaana wa tacaala dartiis dhakhtarkaa uga qayb qaata akoonka waataa laydiin sheegay rasuulkuna calayhi salatu wasalaam waxa uu tilmaamay qofka qof muslima kurba iyo dhib ka qaada ilaahay baa subxaana wa tacaala ka qaadaya maalinta qiyaame walaalayaal ilaahay kurbadiina hasaa la idinka qaadee walaalayaal dadka muslimiinta ee dhibban waa dadkeennii cid uma hadasho yacni cidima daryeesho yacni aad bay u dayacan yihiin si markaa intii awooddeenna aan ilaahay subxaana wa tacaala ugu cudur daaranno walaalayaal dhakhtarkaa naga soo caawiya oo ka soo caawiya ilaahayna subxaana wa tacaala halkaa ka soo saartaan mid ka badan baa rabbi subxaana wa tacaala idin siinaya walaalayaal qadiyaddaa ka qayb qaata walaalayaal qadiyadda hadheelsanina intaas baanu idinka codsanaynaa baaqa ay direen odayaasha waxgaradka iyo qurbajoogga gobolka togdheer gaar ahaan degmadani qoryaale ayaa ka dambeeyey kadib markii ay taabatay duruufta ku gadaaman dadka xanuunka dhimirka qaba ee ku nool magaalada qoryaale goobtan uu ka dhisan yahay riigga magaalada qoryaale ay biyaha ka cabto ayaa noqonaysa islamarkaasna ah goobta loogu talagalay in laga bineeyo cisbitaalka dhimirka ee magaalada qoryaale cisbitaalkan ayaa sidoo kale la filayaa inuu noqdo cisbitaalka ugu ballaadhan ee ay aadka u isticmaalaan guud ahaanba gobolada bariga barnaamijkan gurmadka dadka xanuunsanaya iyo ka qayb qaadashada dhakhtarka waalida ee qoryaale ayaa intaasi ku dhan dhinaca muuqaal qaadista waa cabdirasaaq koronto anigoo mustafa tiijar ah baa idinla socodsiinayay barnaamijkaasi tan iyo intaynu ku kulmi doonno barnaamijkan mid lamida waa guud ahaanba bahda telefishinka qaranka somalilan ee gobolka togdheer oo idinkaga tegaysa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.